ugu xiraya ugu jiidaya oo saaki kabahoodii u sugaya markii dawladda ay timado la raadinaya waxa badba meel ka keenay meesha ku dilay oo kabii ka soo qaaday oo lagu masawir Allah warninki waa xiraya ninkii ida qabiyaa dilay ilmaha ninkii ida qabiyaa dilay gurigan aan kala soo hadlaya oo ku yaala xaafadda Tabeelaha ee deegaanka Garis Valley oo guriga ay ku noolaayeen laba caruur ah oo wiil iyo gabar ah isla markaana la sheegay inuu dilay adeerkood hooyadood qabay xilligan guriga waxa taala tacsiyada isla markaana waxa laga dareemayaa tiiraanyada iyo murugada ka dhashay geerida caruurtaasi ayayda caruurta la dilay oo la hadashay telefishinka Somali Cable waxa ay dawladda Soomaaliya ka codsatay inay ilmahaasi cadaalad helaan isla markaana maxkamadda la horgeeya gacan ku dhiiglihii geystay dilka midna bac oo ku xiray gabarta wiilkana silig uu qoortu u giliyay iyadoo la dhahaay oo la shumbeynaay oo magaalada wax jira aan meeshan saaka imid marka hadoo Allah ku rooyahay aniga intaas ku soo gaaray meeshan leeso winkaan inuu ilmahaas iga dilaayo mar horan ku hadlay waan ku hadlay inta aan u fadhiya ku hadlay ilmaha marka waxay hooyadooda iga jeclaadeen aniga ayeeyana waa ahay hooyana waa ahay oo iidana hooyaan waa ahay oo walaashay iga yaraa dhashay wiilkana waa dhalay oo aniga aba dhalay waa labadeedii sagacnood iidiha iga jeclaadeen ninkay soo guursaday adeeras u yahay wiilay hadda u dhashay labadii yaraada goob cunuga yaras ay goorba ka dilaayeen labadii duurkaas geeyo iska soo dilay waxaan codsanaa dawladda sharafta leh iyo warbixiyaha sharafta leh iyo warfaafinta dhan waxaan codsanaa in aniga ninkaas cadaaladda in ninkaas loo geeyo oo sharciga la qaabilsiyo oo xaqayga dhibka ii gaarsiisay oo liiga qaabilsan ka niga baryaa hooyo macaano xaq muu soo dilay daan oo soo jiiday soo marsi in sidoo ku keenay inta markuu keenay intuusan dilin ka hor marka ilmaha asaga haymiya ilmaha suga hay dagaalkaas ku soo hay ama soo gilaaleeyay shaadana ku soo baashaaleen hada xilli oo 6 sac oo kala soo mooteelay dilka caruurta ayaa dhacay habeennimadii xalay ka hor dilkooda caruurtan walaalaha ah ee daadoodu ka yar tahay 10 sano jir waxa la sheegay in shaleemo ku taala laamiga Tabeelaha Sheekh Ibrahim ee duleedka magaalada Muqdisho uu geeyay adeerka qaba hooyada caruurta la sheegay inuu isaga dilay si uu ugu soo madadaaliyo inta laga gaarayo xilli dambe ee habeenkii dhankiisa ayuu kaga jiray baad goobka markii la waayay caruurta isaga ayaana u tagay ilaamaha amaanka wuxuuna xilligaasi gacmaha ku sitay kabaha caruurta sida la sheegay korkiisa waxa ka muuqday xagtin iyo qaniinyo shaleema jireen shaleemada abaar soo daahay ilmaha abadii la dilay doona marka goorma la tago ilmaha la dareemay inay maqan yihiin ilmaha bacda al-ishaa la tago oo dukaanka adeeg loo soo diray marka adoogina idin dilaa ma dhahoyn ma ogtahay ilmi yar oo gacantiisa ku soo kori waa saasay u dhacday xaaskiisa ma caruur kale u haysa hal gabar hal wiil u haysa hadda bay haysa laamaha amaanka ayaa si ay dhiida u qaaday meedka caruurta la dilay iyo adeerka qabay hooyadooda magaalada Muqdisho mudooyinkii dambe waxa ku soo badanayay dilka ay isku geysanayaan dadka ehelka isku ah ama isqaba maalin ka hor ayay ahayd markii uu dil xaaskiisa u geystay nin deganaa degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho waxay qornay leeyo dhacay waxay ugu dhacay leeyahay waan qorneed alxamdulillah waa dhowr iyo 7 sano jir la ilmeynaysa laba caruur ah oo wiilkeeda uu dhalay kuwaas oo xalay sababsaday gacanta adeerkood hooyadood qabay waa dhacdo xanuun badan oo xalay ka dhacday Tabeelaha Sheekh Ibrahim kadib markii dadka deegaanka ay saake mar qura ay ku soo baraarugeen meydka wiil iyo gabar walaalo ahaa kuwaas oo xalay si arxan darraha uu u dilay sida la sheegay ninka hooyadood qabay dilka wiilka iyo gabadha oo 6 iyo 7 jir kala ahaa ayaa yimid kadib markii adeerka uu ka daba tagay caruurta oo loo diray adeeg kadibna fiilo feero iyo bacmadow uu ku xijiyay dhacdada la yaab kale ayaaba ah kaaga daran markii xalay ilaa saake baadida caruurta uu wax ka raadinayay adeerka eedeysanaha ah taas oo fajac iyo ama ka ku abuurtay dadka deegaanka mar aan booqanay guriga reerka uu degan yahay xaaladda ayaa sidan ahayd waxay qornay leeyo dhacay waxay ugu dhacay leeyahay waan qorneed alxamdulillah
إلهي قري الحمد لله الحمد لله الحمد لله ayeeyada dhashay aabaha carruurtan dhalay oo la hadlay sheekeedhan waxay inoo sheegtay in ilmaha aabbahood uu ku maqan yahay magaalada Garowe waxayna intaasi ku dartay inaysan garanayn sababta ku qasabtay inuu dilo ninka hooyadood qabay carruurtan wiilka waxaa la yiraahdaa Sharma Arke Ismaan Isaaq gabartana Maryan Ismaan Isaaq ala yiraahaa anigana waxaan ahay ayeeyadii wiilka dhashay gabartana waan dhalay walaashay iga yaraa dhashay wiilkana ana dhalay waa labadeeda gacnood beriga saasaani waxa ogaay saakisay wax u jiraan wiilish ilmaha xalay waa soo dhaxeenaa leeyir xaloo dhan waa la raadinaayay saaki medkood iyo xirig qoortu ku xiran yahay la soo arkaa leeyir meel meesha midna xirig lagu xiray fiilo midna bac lagu xiray انت اساني ان اوغهooyo soo gaartay alxamdulillah rabbil alamin ninkan hal wiilo banaanka hadii iga jiro iga haaday asoo ka haaday waxaasir oo durku gal hooyo maxaa durku u gashay ma guriga saaxatid waxaasir hooyo ninkaas caawdi waa ugu soo guurayna waa ibaara asaga aawgiisan banaanka ka aaday 5 bilood bishii lixaad oo ku sii jira durku iga jira caawada meel kuma sheego guriga waa ka haaday saga aaga haado yiri guriga hooyo nafteeda u baqaasira aniga tan inay dhacayso waa suwaay alxamdulillah rabbil alamin ilaaha mahadle hooyo wiilkii ilmaha dhalay Garowe jira hooyadiis gabartii ilmaha dhashay iyo wiilka aniga dhalo Garowe jiro waa kala tageen isma qabaan waa ninay iida guursatay oo inta ka guursatay ninki ilmaha iga laay ha waa ninka ilmaha dil waa ninka iyada inta ka guursatay ilmaha aabahood Garowe jira saaki waxa la yiri waa soo baxay ilmaha dhintay aabahood Ismaan Isaaq Ambuure ala yira Garowe jira saaki la yiri waa soo baxay wiilin wax ima soo gaarin mid ka dilay wiilka iyo gabarta waa kala tageen kii ay guursatay oo adeer waaba la dhahay dilay oo gabar ay guursatay oo iga dilay dhacdooyinka noocan oo kala ah oo aan u wanaagsaneyn maqalka bulshadeenta ayaa waayidii dambe joogta ka noqday dalka kuwaas oo midba ka sii dambeeyay ay ka xun tahay cali cilmi keenan u doona Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena عفدا جامعة شبل deegaanka Garisbaalley ee duleedka Muqdisho ayaa subaxnimadii saaka waxa laga helay laba caruur oo la laa meydkooda oo banaankan yaala waxa ay noo sheegay in markaasi caruurta meydkooda halkan laga helay iyagoo kuwa qaar ay sirqsan yihiin halka midna la sheegay in ilku ka daadsanaayeen labada caruurta ah oo midna 5 jir ah midka kalena 7 jir ah oo gabar iyo wiil kala ah meydkooda halkan laga helay qaar kamid ah dadkii eelada la ahaa iyo sidoo kale dariskooda ayaan wax ka weydiinay dhacdadan iyo sida u dhacday halka laamaha amaanku ay sidoo kale inay noo xaqiijiyeen in dhacdadan ay halkan ka dhacday oo meydka caruurta halkan la soo dhigay sidoo kalena ay markaasi gacanta ku dhigeen ninkii qabay hooyada labadaas caruurta dhashay arka xalay ciyaalkii oo horta la laacsan yahay saaka waxa uu soo kacnay la dhahay gabar iskoolay imaatay waxa la dhahay maamada ilmahaada meeshooda xaq yaalo marka maamadii meesha lagu soo wada orday waxa la imaaday in meeshooda meesha yaalo ilmihii suxuna loo dilay xalina hooyadii adeega u dirsatay in dhulmaan u arkay meesha alxamdulillah banaanka kora la keensaday ciyaalka caruurta qof oo hadda oo loo saari karo ma lahan ilmihii hadda baaris lagu haaya kale alxamdulillah maama ilmaheeda la dhameeyay waa ogtaa ilmo wax ka waday ahaayeen loo dilay araalisi ciyaalka gabadha ilka laga daadiyay alxamdulillah saakay adiga 4 saac ma la soo wacay adiga 3 saac meelaha la soo wacay gabar walaashay adegan meeshan tabeela leeyahay magaalada jooge markaas la yiri gabadhiya
laba cunug maaragtay ee dhashay maaragtay meydkooda meel xaafadda agteeda laga helay marka xalay ilmihii adeegii yaroo loo diray dukaan meesha agtooda loo diray adeegii marka loo diray maaragtay ilmihii waa dib uma soo laaban xal dhan waa la raadinayay saakeena maaragtay meydkooda maaragtay xaafadda agteeda meel oo laga soo maaragtay laga arkay marka ilaa haddana maaragtay waa maaragtay baaritaankii wixii hawshii aska socoto askartii booliiska nala joogo hadda waxaa la hayaa le maaragtay yarkii adeerku ahaa bisaal hadda la hayaa oo maaragtay xogo ay maaragtay laga shaqsan yahay bis wax kan faado zaid ma jiraan marka dhacdaas la yaab kale saak ay nagu soo dhacday anigoo jiif ayaa waxa lagu dhahay wiili gabar ayaa la dilay xaafadda ayaa lagu dilay markaan soo baxayna waxa ku imaaday wiili gabar oo yariis oo 7 jir ilaa 5 jir oo yeelaan xaafadda adiga geeskan oo goofka xagiis igu yeelan ay u imaaday markaas wareystay waxa lagu dhahay maamada waatana xalay dhan ayay raadinaysay ilmahan marka xalay cishii camal ay waxa u dirsay lagu dhahay saliid iyo jubbo cunto ayada casho uu ka rabtay markaas lagu dhahay cuntadii cashadii waxay ka rabtay boodka loo soo tuur ilmihiina way weysay xalay dhan ilmaha raadinaysa lagu dhahay marka wareystan ilmaha waxa lagu dhahay hadda intay yaalaan ilmihi hadda walaa qofkaas dilayso ma dhihi karo ilmihi waa midka 7 jirka wiilkan afka oo ilkii waa ka daadsan yahay gabadhina bac ayaa lagu ceejiyo afka ay caro loogu shubay run ahaanti lama fiiri karba aragooda xataa lama qiyaas garsiin muddooyinkii dambe magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay dhacdooyinka ugubka sidaan oo